السلام عليكم daawadayaasheeda ciyaaraha maanta tube ku soo dhawaada barnaamijkeennii ma ogtahay xaqiiqda xidigaha ka qarsoon xilqadiisii koowaad kaasoonu alaabaydu kula wadaagi doono 100 xidig oo yaraantoodii hal maaliyad soo wada difaacay ama kubadda cagta u soo wada ciyaaray hal koox laakiin maanta waxay u kala ciyaaraan kooxaha iska soo horjeeda ama isku cadowa ama aan idhaahdo derbi isku ah sida classico ama xafiltama iyo wixii lamida isla markaana ay kala kacayeen waayaha iyo waqtiga iyo duruufuhu asxaabta maalin kasta oo khamiisa kala soco barnaamijkan isaga oo taxana ah barteena YouTube channelka ee ciyaaraha maanta tube ama pagekeena ciyaaraha maanta tube asxaabta intaanan barnaamijka guda gelin waxaan idinka codsanayaa inaad nagu dhiirigelisaan subscribe-ta like-ta share waa ku mahadsantihiin sida aad noo garab taagantihiin mar kastaba asxaabta aan ku bilaabo 10 xidig ee maanta aynu soo qaadanayno xidigaha xulka qaranka Hispania iyo kooxda Real Madrid Sergio Ramos iyo xidigaha xulka qaranka Brazil iyo kooxda Barcelona Dani Alves kuwaasi oo muddo iyo waqti soo wada difaacay maaliyadda Sevilla ee kooxda reer Hispania sanadkii 2004 ayay soo wada ciyaareen kooxda Sevilla laakiin inta wixii ka dambeysay waxay u kala hayaameen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kuwaasoo ah classicada ugu weyn ee maanta laga ciyaaro kubadda cagta caalamka Sergio Ramos waxa uu isagu qabtay ama uu wareegay kooxda Al-Maliki Real Madrid isagoo kula guuleystay koobab badan iyo waqti wanaagsan ku qaatay garoonka Santiago Bernabeu dhanka kale saaxiibkiisii Dani Alves waxa uu isaguna u ciyaaray kooxda Barcelona halkaas ay iskaga hor yimaadeen xidigihii ay saaxiibka ku ahaayeen kooxda Sevilla isla markaana ay garoomada iyo masraxyada caalamiga iskaga hor yimaadeen iyagoo cadow isku ah ama xafiltamaya xidigaha labaad aynu soo qaadanayna waxa weeyaan xidigaha sida weyn caalamka looga yaqaan ee Cristiano Ronaldo ama Cristiano Don iyo xidigaha Liverpooliska Fabinho ee khadka dhexe ka ciyaara sanadii 2013 waxay soo wada mataleen maaliyadda kooxda Real Madrid laakiin maanta waxay kala joogaan kooxda Manchester United oo ciyaara Cristiano Ronaldo iyo kooxda ay sida weyn u xafaltimaan ee Marseille ama Liverpooliska aan soo qaadano labada xidig ee ku sii xiga waa Romelu Falcao iyo Gonzalo Higuain labaduba waxay u soo wada ciyaareen sanadkii 2006 kooxda River Plate ee dalka Argentina laakiin inta wixii ka dambeeyay waxay u ciyaareen labadooduba kooxaha isku ah derbiga ee ka dhisan magaalada Madrid ee Real Madrid iyo Atletico Madrid iyagoo hirdan badan halka ku dhaxmaray masraxyada caalamiga dhanka kale Sergio Aguero iyo David De Gea waxay in badan ku soo wada qaateen waqti kooxda Roja Blancos ee Atletico Madrid laakiin waxay ugu dambeyntii difaaceen maaliyadaha kooxaha derbiga isku ah ee reer Manchester kun Aguero wuxuu u ciyaaray kooxda Manchester City halka David De Gea uu weli u ciyaarayo kooxda Manchester United ama Rendefiska ugu dambeyntii Mohamed Salah iyo Kevin De Bruyne waxay difaacayeen sanadii 2014 maaliyadda kooxda reer London ee Blues ama Chelsea laakiin tababare Jose Mourinho oo ku qanci waayay habkii ay u ciyaarayeen iyo falsafadoodii ayaa labadaba diray Mohamed Salah waxa uu isagu u sadcaalay wadanka Talyaaniga gaar ahaan kooxda Fiorentina iyo kooxda Roma ee ku ciyaartay Stadium Olimpica halka Kevin De Bruyne isaguna u sadcaalay ama u wareegay kooxaha Jarmalka ee Hoffenheim
intaa wixii ka dambeysay kooxda Pep Guardiola uu leeliyo in Manchester City waxay la soo wareegtay Kevin De Bruyne. dhanka kale kooxda Jurgen Klopp uu maamulo Liverpool waxay soo qaadatay xidigaha Mohamed Salah kaasoo maanta kubadda cagta adduunka kamid ah kuwa ugu fiican isaga Kevin De Bruyne. maanta labadii saaxiib ee Kevin De Bruyne iyo Mohamed Salah waxa ay labaduba difaacaan kooxaha xafiltama kuwa ugu waaweyn Premier League ama horyaalka Ingiriiska waa Liverpool iyo Manchester City. daawadayaal dhegeystayaal halka ayaan kusoo gabagabeynayaa xilqadeennii koowaad ee boqolka ciyaartooy.